raaf xoog leh baa dhici doona haddii dawladda maanta tiidaad ha loogu talagala adoo waqti xun socda hadaa lagu qabta adaa shaqo isku leh adoo waxa leeyahay hadaa lagu qabta adaa shaqo isku leh hadhow ma dhihi doontid guddiga ganacsatada caawi hebel caawi inta caawi ma jirto waxaa la samayn doonaa raaf cajiib leh ninkii waxa yeelay wixii adinka annaka iska haleynahayna dhibku wuxuu ka socdaa marka Soomaalida waxa maanta wax dila waa Soomaali wax hada waa Soomaali wax isdhaca waa Soomaali tii haday dhacday markaan ay tahay hadda annaka waa ka gaabsanay waxaan u daynay dawladda inay shaqadeeda qabsato horta guddigan ganacsatada markii la aasaasay sideedamihii markii la aasaasay arrintu waxay ahayd nimanka Soomaalida ah oo martida ah oo wadanka jooga luqadaha garanayn aad loo dhibi jiray marka annaka waxaan dadkaasaan daafici jirnay laakiin hadda arrintu waa isbedeshay hadda Soomaalida laga celinaya marka tii iidaad waxay u baahan tahay markaan ay tahay maadaama arrintii ay soo gashay Soomaali nidaamkii marka hore loo shaqeynaa waa in la bedela markaan dadkii la qabanayo u fakanayno annaka lahaynin ninkaan ay ta luqad ma garanayo waa la dulmahaya tii way bedelantay waa arkaysiin wax dhacaaya marka annaka waa u daynay dawladda shaqadaas dawladdan dhahnay shaqadiina qabsado ayagana shaqadooda ay bilaabeen waxaa la samayn doonaa raaf cajiib leh ninkii waxa yeelay wixii adinka annaka iska haleynahayna dhibku wuxuu ka socdaa marka Soomaalida waxa maanta wax dila waa Soomaali wax hada waa Soomaali wax isdhaca waa Soomaali tii haday dhacday markaan ay tahay hadda annaka waa ka gaabsanay waxaan u daynay dawladda inay shaqadeeda qabsato raaf xoog leh baa dhici doona haddii dawladda maanta tiidaad ha loogu talagala adoo waqti xun socda hadaa lagu qabta adaa shaqo isku leh adoo waxa leeyahay hadaa lagu qabta adaa shaqo isku leh hadhow ma dhihi doontid guddiga ganacsatada caawi hebel caawi inta caawi ma jirto hadda nin kastaba waa inuu security-ga ilaaliya oo dadka waxa leynaya dawladda loo sheega saasaan lagu baxsan karaa raafka ma ku dhacayo yaa la xir doona yaa soo qaban doona nin kasta markii maaragtay dawladdan ay waan soo dhaweysay laamaha amniga oo idaalmaanta Soomaaliya u wala weyn aad baa noola soo dhawey laakiin dhibaatada taalo waxa way maadaama Soomaalida ay tahay wax hadda laga sheegana oo dhibaatada wada dadka la qabana waxa way dadka ma aragtay aan nidaam ku joogin dadka waqti xun socdo dadka ma aragtay ganacsigooda iyo madadooda ay haleynahay ayaga naftooda waxa soo la qaban doona markaan ay tahay anaga waxaan leenahay qof aan daaficayno waxa way uu qofkii la dulmihay meeshaan hadda maanta dulunku waxaan arkaynaa Soomaalida inay wado tiideed marka waxaan ka leenahay Soomaaliya ay gaabso ka joog arrimaha Kenya nabadgelyo xumada waxa dhacday waqti ma ka wada ninka habeen 8 saac 9 saac 5 saac 7 saac socdo muxuu socdaa waqti la hurdi lahay ganacsiga way furan xaafadda ismiid kama way furan yihiin 24 saacadood ganacsi waa rabnaa inay ganacsigaas heerka noo gaaro laakiin markii imaada security issues oo ay jirin nabad wanaagsan ay jirin ma ganacsan kartid marka ganacsiga annaka iska haleynahayna anaga waxaan rabnaa magacaan halaabay oo Soomaalida oo la haleynaya inuu soo celino markaasaan ka hadli karnaa xilliyalka dambe oo ganacsiga la wadan kara laakiin hadda magaca wala haleynahay waa magaca Soomaaliya waxa haleynahay waa Soomaali marka waxaan leenahay arrimahan halaga noqdo halaga shaqeeyo nidaamkii ma aragtay 24 hours economy ay isli u noqon leed oo hadda waxa leedahay maqaayadaha hadda shaqeeyaan xilliyaha habeenkii iyo dukaamada ha xiraan ilaa uu xalka hagaagay waa arrinta taalo oo waxay la tahay arrintaas ay waxay u taalaa dawladda haday garatay inay ma aragtay dadkaas ay tahay maqaayadooda xirtaan dawladdu waa laakiin annaka waxaan sabood gareynaynaa in meesha nabad laga helo bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعمر أحمد اسكدوها جودة جناح سجسلي ما أنت شيل وين باكد عي ماشان حافظة لحدة أو كي 6 أو 5 ستريت waxa isku imaaday hay'adaha wakaalada dawladda oo dhan ee amniga ku saabsan iyo shacabka isku jir anaga business community kuwan bodaha kuwan taxiilayaasha iyo shacabka bulshada weynta inteeda kale ayaa isugu yimid waxaa laga wada hadlay amniga xaafadda iyo sidii la isugu baahan yahay dadka dhan inay wada shaqeeyaan security-ga iyo shacabka oo dhan nin kasta wixii looga baahnaa ayaa meesha lagala hadlay waxa marka lagu heshiiyay in amniga la wada sugo qof kasta oo meesha ganacsatada iyo shacabka dhexdeedaba in wixii dib u keenay xaafadda iyo wixii amni darro xaafadda ka wada in laga wada shaqeeyo taasna go'aan baa lagu gaaray si fiican bay noogu soo dhamaatay waana waxaan aad uga mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay iyo dawladdu sidii ay isu xilqaantay ee u keentay hay'adaha security-ga oo dhan si ay meesha u yimaadeen ay ugu wada hadleen ay diyaar u yihiin xaafadda amnigeeda in la sugo xaafadda magaca xun ee ku soo aaday bariyahan in laga dadaalo oo dagaal muujiyo
oo magacaan la tirtiro ayaa lagu heshiiyey qof kasta oo xaafadda deganna amniga ayuu ka shaqayn doonaa taana si fiican bay noogu soo dhamaatay marka waxaan maqalnay inay leeyihiin raaf baa dhici doonaa bal wax nooga sheeg raafkaas maya raafkan waa raaf amni weeye raafkan waa raaf amni meel allaale meeshii lagu tuhmayo inuu dad amni darrida ku saabsan ay ka shaqaynayaan ama ay degan yihiin ama ay ku soo cararaan baaritaan baa lagu samayn doonaa taasna dowladda samayn doonta insha Allah xilligeeda iyo maalmahaas dowladda iyo hay'adaha security ayaa amniga ku shaqale marka qof kasta oo amni darro wada waa la qaban qof kasta oo amni darro wada waa aadi meesha joogo hadduu guri degan yahay hadduu dukaan leeyahay hadduu baabuur wado iyo hadduu bodhbodh wado intaba waa la soo dabagelaya nin kasta oo shacab meesha degana wuxuu qaaday ballanqaad in amniga laga shaqeeyo boodhaha iyo taksiilayaasha iyo shacabka inteeda kale ee magaalada ka ganacsanaya inay amniga wada sugan lagu heshiiyey ganacsatada anagoo ka mid ah iyo shacabka meesha degan oo dhan waxaa lagu heshiiyey in amniga la sugo waana la sugay insha Allah nin kastana wuxuu sheegi doonaa ninka qalqalaasada wada ama dambi fulinta wada in wax laga qabto nimanka dadka telefoonada ka dhacaya ee boodhaha ku cararaya waa laga hadlay nimanka dadka tooreynaya waa laga hadlay dhalinyarada istooreynaysa ee dadka shacabka soo dhexgalaan istooreynaya waa laga hadlay taksiilayaasha istooreynaya lafteeda waa laga hadlay marka lama ogolaan doono qof toori wata ama baangad wata oo amni darro xaafadda dhexdeeda ku sameynaya lama ogolaan doono dowladduna waa diyaar securityna waa diyaar insha Allah marka hadda xaafadda waa amnigeedu ballanqaad baa loo qaaday waana la ballan qaaday amnigana wax baa laga qaban insha Allah muddo yar gudaheeda bishan 12 intayna dhamaanin isbedel weyn baa dhici doona insha Allah ya kidini kwa sababu zile mtihani tunafanya ni national examination. Nataka nikwamie hapo na Mungu awabariki, labda nirudishe na mkubwa hii area labda anataka kuongea na wananchi aseme moja. Take both Muslims and Christians for their lessons. We are a technical. Tunaelekea msimu ya Krismasi, sisi hakuna mahali tunaenda. Hata sisi wafanyakazi wa KCT, hata wanafunzi wetu, number one ile inafanya tunakuwa na market kwa hii college yetu ni security ya hii area. Hata nyinyi wazazi mmekaa hapa, kama kuna mtoto hapa KCT na usikie kwa mradi kutafuta kazi, kupata kazi ni ngumu, tunahimiza wazazi tuangalie what is called blue collar job. Ndio mkutano yetu na maombi na umbana, tunaelekea msimu ya Krismasi, sisi hakuna mahali tunaenda. Hata sisi wafanyakazi wa KCT, hata wanafunzi wetu, number one ile inafanya tunakuwa na market kwa hii college yetu ni security ya hii area. Hata nyinyi wazazi mmekaa hapa, kama kuna mtoto hapa KCT na usikie